siyaasi cabdiqaadir cali obsiye oo ah siyaasi madax bannaan oo reer Somaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegaya in dawladda Ruushku ay qorsheynayso inay dib u furato saldhiggii militari ay ku lahaan jirtay magaalada Berbera waxaana xukuumadda Somaliland soo jeediyeen arrintaasi oo soo eegto geesta kale waxa uu siyaasi cabdiqaadir cali obsiye ka hadlay dagaalka mar kale ku dhaxmaray laba beelood oo walaala deegaanka loo yaqaan Fadhigaab oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaan leeyahay Ruushka ayaa imika hungurikaaya inuu ku soo noqdo saldhiggii uu ku lahaan jiray magaalada Berbera ee Somaliland waxaan leeyahay la soo dhaweeyay ayaga iyo Turkiga waxa la soo dhaweeyay waan leeyahay waayo imika dekadii yarada ay ka maalgelinayso qoladan la yiraahdo Qatar waxay ku bixiyaan 5 bilyan oo dollar bay ku bixiyaan 500 oo milyan xaqul qalin ba u siiyeen halka inaga 400 oo kun ay nagu cuno qabateeyeen oo farguudkooda wax isu dhigma maaha 5 bilyan iyo 400 oo kun wax isu dhigma maaha waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay waan baahanahay looma bahal cuni tira Soomaalidu waqti waa waqtigeena degdeg badan la iska daayo halkii dan inoogu jirtana hal yeelaba nikala jire oo isaguna yaabay oo runtii isaguna aad u yaabay wuxuu la yaabay يعني sac uu maalay oo maaragtay weeshi uu ku sii daayay oo hadana naagi ka tii daba maashay heerkii ayuu arkay dadana wuxuu walaal waayaa buu sacnin maalo weyli nugta naagi xiga buu markaa waxaan uga socdaa dagaalkan soo noqnoqonaya ee aan dhamaanaynin ee inta soo jeer la isu dhaarinaya waxaan leeyahay walaal waayaa waxaan leeyahay wuxuu ku soo afjarmaya sidaan horeba u sheegay إن ذاتك فتنة بلابي النبي قول عليه الصلاة والسلام الفتنة النائم لعنة الله من استيقظها فتنة ويهرد قفك توسية إلهي هن عدله مركا قفك فتنة بلابي إن ونعدله برتي سلوه خارج شيء عم برلوه قبل إسقي يعد الله سعتبه أي شيء كذا سيكون أفضل شر مسابان كله أولادها سيكون أفضل لكن هذه مربع كوح الله درائي أو يان يبغى حدا قميد in badan bay lagu celcelinayo ay waxba ka tarwaayeen waxa leeyahay arintaas gacan biraha lagu qabto waa dadkaas way nacdalanayeen fitnada bilaabaya inagana dhaartaas way ina saameynaysaa in mar walba la jibinayaa in gacan bira lagu qabto halkooda lagu toogto iyaga iyo cidii la socotaba dhinaca kale waxa uu siyaasi cabdiqaadir cali obsiye ka hadlay isla markaana xukuumadda Somaliland soo jeediyay in laga faa'iideysto xilli roobaadka isla markaana xukuumaddu qorsheyso biyo xidhano si looga baxo abaarta waqtiyada jilaalka tan kale doonaya waxa weeyaan iyaduna waa soo jeedin waxaan ku jirnaa xilli roobaad xilliga roobka waxa loo baahan yahay in biyaha qabsano aqliga ma galayso oo bini aadam fakaraya way nala yaabayaan ama caalamka hormaray dadka biyuhu imika durdurayaan hortooda wabiyadu rogmanayaan gawaadhida iyo dadka maalin walba ay naga qaadayaan haddana bari aynu ku oomanay ka baahanahay caalamka u qayshanayno waxa weeyaan dad weynu way nala yaabayaan caalamku way nala yaabayaan aqli saliimina ku siin maya fakarka caynkaas inuu dadku iska taagnaadona biyuna socdaan maantana ay ka socdaan biyo berina haraado oo u baatid iyo abaar walay nala yaabaya waxaan leeyahay laga faa'iideysto wax yar baa ku baxaya biyo xidhanada biyaha wabiyada hal la qabto annaga waxaan noo qorsheysan hadii Ilaahay nagu guuleeyo biyaha dooxyadu waa sahlan yihiin qabitoodu waa sahlan yahay kuwa magaalada ka dhacay ee munjaroorku sameynayaan ee magaalada lafteeda ka dhacay ka soconaya inaan barkada u sameeyay meelo lagu qabto lagu daweeyo dib loo isticmaalo anaga noo qorsheysan hadii Ilaahay yiraahdo si xirbarkan loo taaglayahay iyo shirka Somaliland ee maalinba maanta ka sii dambaysa si qiimo dhacaya waxaan leeyahay horta ma jeclin xukuumadda lagu dardego oo 5 bilood bay imka maraysaa laakiin waxaan anigu taaganahay haddii uu taag weydo xukuumaddu wali ceeb maaha qofku inuu wax qaban kari waayo laakiin waxa ceeba inuu qofku isku sii dhajiyo wuxuu qaban kari waayo waa in cidii qaban karaysa chance kalsiya ayaan anigu soo jeedinaya taas ceeba baan anigu arkaa oo qofka chance loo diido laakiin qofku wax qaban kari waayo ceeb ma ugu dambeyn siyaasiga ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha sixir bararka taas oo sheegay in xukuumaddu ku fashilantay wax ka qaybashada sixir bararka baasan ee ka jira Somaliland Cabdiraxmaan Carab Kalson TV Hargeysa